midnima adduunyada lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midnima adduunyada lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay aygu waa nuuridiin sheekh maxamed xasan birkaan oo Soomaali ah ka soo jeedana goboladii la isku dhihi jiray Alta Jubba, Basta Jubba, Shabeellooyinka, Hiiraan, Banaadir. maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha 6 2020 halkan waxaan ka cadeynaynaa inaan samaynay urur beeralayda Soomaaliyeed shay kasta ogtihiinba shay walba oo noole ah waxa uusan ka maarmin daryeel sida hadda aan ku samaynay aad u jeedaan geedkan beeralaydu waa udub dhexaadka nolosha aadanaha haddii beer aysan jirin ma jirto nolol macaan oo adduunkan la gaarayo waa mirihii lagu noolaa bani aadamku caws kaliya kuma noolaan karo miraha kaligiis ku noolaan karaa marka sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan samayno samaynayba urur beeraley magaciisu yahay UBS ururka beeralayda Soomaaliya xisbiyada dalka waxaan Soomaali u soo jeedinaynaa waliba xisbiyada dalka in lagu saleeyo resource-ka khayraadka dalka yaala ama tarwaadka dalka Soomaaliya sida aad ogtihiin waa dal tharwa khayraad kalluumeed khayraad mireed oo beeraha ah iyo khayraad xoolaha ah ayay leedahay oo la hubo saddexdaas waaba la hubaa tan kale oo macdanta iyo dahabka iyo shidaalka iyo gaaskana waa sida culimadu sheegeen waaba iyaguna insha Allah taas waa la gaari doonaa waan leenahay waxa saddexda noo oo Ilaahay na siiyay oo in ururada Soomaaliya lagu saleeyo ururadan la samaynayo oo magacaantan oo la taaban karin ism bila musamma ba jiri maqli jirnay marka beeraley marka aan dhahno beeraley Soomaaliya geeska gees Puntland ha joogo gobolada dhexe ha joogo Hiiraan ha joogo Alta Jubba Basta Jubba Banaadir meel kastoo joogo beeralaydu waxay noqonayaan isku hal dan isku hal shaqo xisbigoodana xisbiga beeralayda ayuu noqonayaa waa arinta kaliya oo la arkay la fiiriyay lagu daciifin karo isbahaysiga beelbeesha ama reerka isku danbay noqonayaan Soomaali waxaan u soo jeedinayaa xisbiyada la sameynayo dalkan siyaasadda hoggaanka qaban doono in lagu saleeyo resource-ka dalka kalluumaysiga beeralayda reer guuraaga iyo xisbiga shaqaalaha iyo waxyaabo noocaas laakiin marka magacaan badan oo hadda jirto inkastoo aan cidna aanan dacaydeynayn waxa magac waara ama ma arin noqon doonta ma noqonayso oo mustaqbalka dambe hormuud hadduu qof masalan xisbi hormuud la dhaho haddii Soomaaliya oo siyaasadda hormuud yaala nationka beeraley markaad tiraahdo horay banaanka ka taagan yihiin beeraleydii ayaad hormuud politikada u horboodaysaa waad hormarinaysaa waxayna ahayd ururka nationka beeralaydu ah nationka ugu hodansan Soomaaliya inay ahaataa la rabay kalluunleydu inay ahaataa la rabay reer guuraag inay ahaataan la rabay maanta ayagaa dhiban
waxaasna waxaa keentay administration xun baa keentay maahana dad beeraley ah oo beerahooda dhexdeeda cunto loogu qeybiyey soomaaliya ayaa la arkay waxayna ahayd soomaaliya o dhan inay caawiyaan marka horese in la caawiyo materiyaal laga caawiyo qalabkan muxuu ah fududeynaya beeraha wax soo saarka fududeynaya qalabka suntan cayayaanka dilayso haddii beeraleydu haddii wax yar la caawiyo 1000 sanay dalku caawin karaan taa darteed soomaaliya waxaan usoo jeedinayaa ururo ku salaysan khayraadka dalka hantida dalka ilaahay nasi dalkeenna waa hantideenna waxa ka baxo ama ku dhex haysanana waa hantidiisa waa hantideenna kale marka ururadeennu siyaasadda ha ku salaysanaadeen beeruhu waxay faa'iido u yihiin nolosha dadka in beer aan tacbano waxaan ka faa'iideynaa inaan soo saarano cunto natuur ah nadiif ah adduunku wuxuu marayaa cunto bacramis ah gacan lagu sameeyey oo isukaankeen ah oo caafimaadkeeda la hubin marka dhulka ilaahay oon camirno ayaa beeruhu aan ka faa'iideynaa inaan miro ku abuurano oon ku noolaan lahayn baan ka faa'iideynaa in dhulku noogu qurxoonaado aan ka faa'iideynaa oo ilaahay geeduhu iyo balka iyo cawska iyo giddi waxay soo jiidaan jadbaad baa la dhahayo roobkeeba soo jiidaan arag fiican raaxa leh marka waa tusaale waxaan kusoo qaadanaynaa wadamadan reer galbeedka for example anaga waxaan ku noolahay hadda wadankan norway la dhaho 3% ayaa ah dhulka u abuurmaya oo dhul beereed 97 kale waa dhagax iyo buur ma abuurmayo lagama faa'iideysan karo dawladdii saasay tahay dadka percentage-kaas aad u yar dawladdii way caawisaa waa la dhiirogeliyaa mire iyo furugtay abuurtaan xilliga uu soo go dadweynahana way kala dafaan markay usoo beerahooda ay soo go-aan dadweynihiina hore ilaa uu suuqa ka baxo wax kale adduunka laga keenay ma gataan marka anaga hadda waxaan aaminsanahay dalkeena Soomaaliya 100% uu abuur maayo haddana muxuu ahaa aan laga faa'iideysanin beeraleyda la taakuleeyeen waxaa lagu qasban yahay in beeraleyda la taakuleeyo oo la dhiirigeliyo oo dalagga khayraadka miraha noo soo baxa aan kaga maarano adduunyada xitaa aan u beecgeyno dayaca ku dhacay beeraleydeena iyo dhulkeena saas barakada u leh oo nimcada leh waa dayac anaga aan sameynay wixii hadda ka dambeeyo in maxog loo duubto dadweynaha Soomaaliyeed anigu waxaan soo jeedin lahaa qof kasto Soomaali ah waa inaad beer lahaataa waliba ka shaqeysa adoo magaalada jooga hadaad askari tahay hadaad nin commercial ah tahay waa inaad beer lahaataa qof kasto Soomaali oo qaangaar ah waa inuu beer lahaadaa waa la dhergayaa adduunkana waa inta geyn karnaa Mareykankan oo horumaray waa ogtihiin beeraleyda la hormariyay la caawiyay ilaa ay adduunka miraha qamadiga Mareykanka oo adduunka maashay qof kasta Soomaaliya waxa uu soo jeedinaya beer samayso horta wayna dalku naga aad u naga badan yahay waxa ayaan dhaweyd qofka tirada Soomaalida dadka Soomaaliga tiradooda dhulka kilometerkiisa nin baa habeen wada joognay oo aqoonyahan ah waa statistics uu isku dhuftay nin walba wuxuu helay 1 kilometer iyo 400 mitir buu qof waliba helay nin walba waa 5 beerood u samaysan karaa meelna geelu ku daajisan karaa meelna ari buu ku daajisan karaa meelna beer uu ka dhigan karaa nin China ahna waa ogtihiin 30 mitir buu beerna ka dhigtay 30 mitir isku wareeg ah 4 mitir buu 3 qol iskor saaray inta kale oo ku hareersanaan wada tomaat yaanyo iyo wuxuu ka dhigay basbaas sikal buu ku qaadaa subax kasta suuq u geeyaa 30 mitir buu dhan kasta ah ayuu ninkaas China YouTube ku jira waxyaabaha aniga geliyay bay ka mid ahayd ninkaas 30 mitir haysta geeska gees 30 mitir 4 mitir ka mid ah ayuu 3 dabaq uu koreeyo asaga islaantiisa saacdo dabaq dhaxa caruurtu saaxistaa
laba ilmood kan u hooseeyana cuntaday ku karsadaan waana fadhina wuu u yahay dhulkii oo dhan dhagax bay ku socdaan oo saa u dhigayaan tallaabo dhulkoo dhan wuu beeray tomaat yaanyo iyo wuxuu ka dhigay iyo basbaas iyo bataati iyo basal iyo adduun maalin kasta tanagyaal buu geeyaa muxuu ahaa magaalada geeyaa maalqabeen uu ku noqday dad yahood